السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan sii wadi doonaa muuqaaladiina ku saabsanaa dhisashada blogger website dhammaystiran. muuqaalkana waxaan ku baran doonaa sida website loogu soo daro ama loogu yeelo logo, sida loogu sameeyo ama calaamad gaar ah oo website-kaagu uu leeyahay. Okay, si aad logo ugu soo darsato, horta marka ugu horeysa waa inaad logogaada soo diyaarsataa oo samaysataa. marka meesha ugu fudud ee logo si degdeg ah looga soo samaysan karo ayaan tagnaa. waan ka soo baxnaa mobilkeena. waxaad soo dhowrgaraysataa Canva, soo dhowrgarayso oo tana. Canva waa runtii platform aad u wanaagsan oo kuu sahlaya inaad samayso logooyin fara badan iyo design fara badan oo free ah, aadna u nashqadaysan. Okay, markaas kuugu soo kacdo Canva, waxaad sameynaysaa xagga sare search-ka dushiisa ayaa taabanaysaa. waxaad ku qoraysaa logo, ku soo qor logo ayaan sameynanaa search dhe. kadib design free oo fara badan iyo kuwa kale lacag ay ku soo baxayaan. kuwa ka free-ga ayaan insha Allah qaadan doonaa. option kale ayaa ku bannaan oo ah inaad create leedahay oo mid professional ah hadaad khibrad u leedahay aad samaysatid. haddii kale kuwan samaysan baynu ka beddelanaa magacaanta, kadibna inaga ayaa sideena ugu save garaysanana inaga sideena u diyaarsanana logadeena. Okay, hadda kan ayaa ku dhufanaya tusaale kn ku bilaabmayso. Okay, hadda logadan ayaa noo soo baxday. logadan ay doon wax ka bedelo ku dul dhufaarka keeda dusheeda. halka waxaan bedelnaa meesha kn ku qoran tahay, meeshan hoose edit ku taal imo. kadibna waxaad samaysaa kn ta bedel. inaga muxuu noo ahaa wariyo hasmaha WR baa ka dhiganaa. kadib weer noqo. waxaad samaysaa angalada ka soo yaree. marka saas kale ka noqdo angalkan ka soo yaree soo uu kuugu noqdo mid meesha ku filan. haddana angalka kale ka jiid oo xaggan u jiid si ay meesha u leekaato. oo kaas waa W. kadib saa ugu beeg kor yar qaad si qoraalku meesha dhexe uu kaga beegmo qoraalka dambe. WR buu noo yiri. halkan ku xigta oo taabanaydan inta yara dhexe ay wax ku qorqorayeen edit baa yara taabanaa. waxaan ku qorayaa wariye tusaale, wariye Soomaali baan ku qorayaa tusaale, wariye Soomaali ayaan iska qoranayaa. adiga magacaaga hadduu laba magac yahay mid kaliya tahay waridaaba ku deyso. hadduu laba magac yahayna okay waad karasaa. hadda mar dambe ka odhanaya. kadib color-kan bedelayaa. meeshan color-ka qoran tahay ayaa ku dulfanaya. waxyaalo badan ba ka bedeli kartaa. hadda madow haddaan ka dhigo, madowgaas ugu qurux badan. logadeenu saa uma si professional aha, laakiin saan looga loo soo geliyo ayaynu ku barananaa. Okay, hadda waxaan arkanaa in looga qurux badan loo sameeyay. muhiimadda ugu weyn baa waxay tahay in logadaadu ay tahay 4 gees. taas ayuu ka yeelay bloggerku wax kale square wayna ku ahaato 100 KB na ay ka yar tahay. haddaynu gudaha ku arki doonaa. hadda save ayaan odhanayaa, tan ayaan ku dhufanayaa. kadib markaan ku dhufto isaga ayaa ii save garaynaya. kuwa lacag ayaa jira. haddii ku save garan waayo waxaa laga yaabaa inaad kii lacagtaas soo dooratay. okay, hadda wuxuu yiri gallery-dan kugu diray. oo ka soo noqonanaa. waxaan imanaa website-keena. kadib meeshan sare ku dhufo. waxaad ku dhufataa meesha ku qoran tahay settings-ka hoose. kadib waxaad ku soo dhufataa meeshan ku qoran tahay favicon. kadib waxaad timaadaa waa kana information kan ku qoran yahay. wuxuu ku yiri waxaad soo doorataa favicon. waan soo diyaarsan kartaa Google-ka waa lagu soo qori karaa, laakiin san ayaa ka fudud hadda sameynano. favicon file soo dooro, soo select garayso ku yiri oo file-kaasina ha ahaado square kana yar 100 KB. okay, haddaba si ogaan karaa in 100 KB ka yar tahay logadeenu ka soo wada noqo. kadib images-ka ayma caadiga ku dhufatan imkaada sameynay ee wariye ku qoran tahay. waxaad samaysaa sawirkan kor u jiid, saa kor u jiid. kadib waxaad arkaysaa hadda kor u jiido waa kana. marka kor u jiido halkan waxaan ku arkay inuu yahay 10 KB. waxa uu ka yar yahay 100 KB waa ka yar yahay. haddii uu KB-gaasi uu ka bato 100 waxaad sameynaysaa website-ka si toos ugu soo noqo. meesha Google-ka soo furo. marka Google-ka soo furto waxaad ku soo qortaa reduce image size ku soo qor. website-kan si toos ayaan ugu jiraaba reduce image size baad soo qoraysaa. haddaynu soo qorno si toos ugu soo noqono waxaad soo qoraysaa reduce
halka ku qoran oo kale soo qoraysaa intaas soo qoraysaa kadib marka soo dhufato website-kan ku keenayaa kadib ka u sareeyo image size ku qoran tahay resize image online baad siinaysaa click kadib halkan select ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa kadib file-ka ayaa tagaysaa kadib sawirkii aad u baahnayd in lagu yareeyo size-kiisa ayaad soo qaadanaysaa xagga sare tag kadib waxa ku soo dhufatay meesha ku qoran tahay gallery kadib sawir baan u baahnay in loo yareeyo kuwan iyagoo yaryar yihiin tusaale ka hor inta tijaabinay ayaan eegayaa ka haddaan ku dhufto marka hore size-kiisu waa waxa weeye 443.27 kb way kolka 100 saan uga dhigno hadda waxaan odhanayaa kor u jiid soo soco kadib waxaad ku dhufataa meeshan oo soo qoran tahay resize image isaga ku resize garan doona kadib way resize garan 72 ka dhigay resize baa uu iga dhigay kan laakiin ma aha square oo ku tijaabinayno resize-ka looga dhigo waa square ku waxa la afar geesla yani isleeg afarta dhanba oo sawirku yahay marka download baad ku dhufanaysaa sawirku ku soo tagayaa haddii ciladaas ku qabsato okay nagu soo celi bloggerkeena bloggerka hadii ku soo noqono kadib waxa ku soo dhufanaysaa settings marka soo baxdo meeshan ay ku qoran tahay 5 combat imanaysaa kadibna waxaad halka ay ku qoran tahay choose file baad ku soo dhufanaysaa cawlan kadibna file-kaas aad ku dhufanaysaa ku soo baxaya kadib inta badan halka sawirku ma soo galo saddex fallaadhe bidixda sare ku dhufo kadibna waxaad timaada meesha ku qortay gallery kadibna waa ka sawirkii aynu soo habaysanay haddaba ka waa yeelay wuxuu igu yiri sawirkaas aan soo gelinaynaa waa yeelay markuu ku diido halka wuxuu ku soo qori doonaa ama square baan ahayn ama waa u badan yahay hadda waxaad ku dhufanaysaa save hadda waan save gareeyay website-keenu waxa uu leeyahay loogada inuu xogaa ina soo bixin baa laga yaabaa laakiin yarka baadiisa soo saari doono oo xagga sare ay ka soo muuqan doontaa muuqaalkan waxaan ku baranaynay sida loo sameeyo loogada sida fudud ayaa loo soo geliyaa insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.